15 sano iyo dheeraad oo ay dhiigeena ku daadinayeen ku been abuurashada diinteeda islaamka. hadda maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab waxayna leeyihiin la imaado xujooyinkiina haddii aad run sheegaysaan. kaalama hadlay wixii ka dhacay hotel Shamow, Hargaha iyo Saamaha, Zobe, ex-control Abui. meel kasta oo dalka ka mid ah waqooyi, bari, koonfur, meel kasta oo dhibicdiga ku daadiyeen argagixisada al-shabaab ma rabo oo dib kuma xasuusinayo. kaalama hadlay hooyada iyo aabaha weli ay ka maqan yihiin qayb ka mid ah jirkoodii, la'ana caruurtii ubadkii ay dhaleen raq iyo ruux meel ay ku dambeeyeen. gocasho oo dhan ma rabo inaan dib ku xasuusiyo. intaa wixii ka duwan cidii haysa waxaan leenahay qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin. wax la dhowray ma jiraan. xitaa masjid waa la burburiyey, dad waa lagu dhex dilay. dad keliya ma aha, culummadii iyo cuqaashii ayaa lagu dhex joogtay. culummadii aqrin jirtay rawaatibta ayaa meesha laga saaray. si kastoo ay u suurad xumayn karaan islaamnimadeena ayay doorteen argagixisada. koox uuna isu haysato iyaga uun inay muslim yihiin ayaana leh hadda waxaan u gardhiganaynaa kitaabka iyo sunnaha. dadkii kalaba diideene yaabaye yaad u gardhiganaysaa.